qof dilaaga ayaa iska dhigay inuusan awood lahayn, gacantiisa midigna jabtay, laakiin dhab ahaantii qoriga buu ku qarsaday gudaha suunka gudihiisa. Qorshihiisu wuxuu ahaa mid fudud, inuu dilo nin taajir ah oo kursi curyayn ah ku fadhiyay, lacagta madax furashada weynna qaato, dabadeedna nolosha dambena nasto. Laakiin markuu isku diyaarinayay inuu weerarka qaado, waxaa meel fog ka soo muuqday dilaa kale. Midka labaad wuxuu isticmaalayay qori awood sare leh, wuxuuna si sax ugu dhuftay bartilmaameedkiisa. Halkaas ayaa jahwareer ka dhacay, dadkii way qayliyeen, ilaaladiina meel walba ay raadin bilaabeen. Stallone, dilaagii koowaad, wuxuu arkay ninka labaad ee isku ekeysiyay nadaafad leh, isagoo isku dayay inuu baxsado. Wuxuu go'aansaday inuu madax furashadiisa ay gacantiisa kasii baxayso. Si degdeg ayuu u doortay meel uu ku rido xabad, wuxuuna toogtay, balse wuu seegay. Dilaagii kale isna wuu ku jawaabay, rasaas culusna way isdhaafsadeen labadoodii. Mid walbana wuxuu sugayay daqiiqada saxda ee uu ku dhameeyo kan kale. Markaas ayaa dhowr ilaaliyaal isu wareejiyeen dilaagii labaad, balse 3 ilbiriqsi gudahood dhammaantood uu hoos dhigay. Stallone wuxuu sii ridayay rasaas, wuxuuna go'aansaday inuu wajahay dilaa khibrad sare leh, laakiin halkii laga filan lahaa inuu xabsi galo, dilaagii kale wuxuu u muuqday mid dagaalka kasii xiisaynaya. Daqiiqada yar kadib laba gaari oo booliis ayaa yimid, waxayna xireen jidkii baxsadka ahaa. Markaas ayuu dilaagii labaad go'aan geesnimo leh qaatay, wuxuuna gacmaha ka hubtaagay oo booliiska ayuu isku dhiibay. Stallone ma uusan haysan fursad kale, wuxuu u arkay sidii ninkan uga baxsaday si sharci ah, isagoo la qaaday booliiska hortooda. Wuxuu go'aansaday inuu ciyaarta aysan dhammaan, balse mar kale kulmi doonaan.